السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكسو نقضي نفسنا حساب بدل ما أنت عشر كنا عشر كوارو كدو وين هاي ما أهان conversation إن ضوء بارتين channel كان حرد أكاديمي كسو دو هذا ما أنت وحين وضع conversation عاد أقيم بدن كاسنا وهل دونا يعني لبقف هاي قبل هذا عواننا وحنا وصل لقي an afternoon in the kitchen an afternoon in the kitchen galab an afternoon waa galab sad ogtiin in the kitchen waa kushinka waa galab kushinka lagu jiray so situationka marxaladda muxuu ah marka situation kan dhaha situation marka la sameeyo waxa qiimeyntii marxaladdii markiideed waxay ahayd Mrs. Hafsa is baking cakes when her daughter Asha gets home from school. Mrs. Asha is baking cakes waxay dubaysay cake kadib markii gabadheeda Asha ay dib uga soo laabatay iskoolka. So conversation sidaan u dhacayaa marka waad ogtahay mar walba waa waad ogtihiin qofka waalidka canuga markuu imaado iskoolka imaado ama shaqo ka imaado hadii jeer salaanta saa bilaabayo saytiin hooyo inuu banaanka soo shanqaro nooca ah so Aasha hadal bilowday waxay tiri mom hooyo I am home marka dadka qaar waxay dhihi doonaan I am at home waxa loo dhihi way I am home waa informal way of saying I'm back home. Then waxay tiri mom hooyo I am home waan imid gurigan joogaa. Then Mrs. Hafsa waxay tiri how was school ka waran tiri xaaladda iskuulka how was schoolka sidoo ahaa how did you do on the test qaab noocee ayaad u wajahday testigii ama imtixaankii yani waxaan ka dareemaynaa halka Aasha inay lahayd imtixaan maalinka iyada ah so waxay tiri how was schoolka sidoo ahaa how did you do on the test qaab noocaad u wajahday imtixaankii ama maxaad kala kulantay imtixaankii then waxay tiri school was okay schoolku wuxuu ahaa okay mid fiican and I did great on the test I did waxaan yani waan ku barmoosay ama waan ku guulaystay tiri imtixaankii testigii imtixaankii aan soo sameeyey mom ay tiri hooyo yani hadalka sii wadato I was so worried about that test waxaan aad ugu murugeysnaay tiri imtixaanka ayada ah ama tijaabada ayada ah but laakiin now I feel great hadda laakiin waxaan dareemay tiri si wanaagsan what a relief qofka hadduu ku dhaho what a relief means uu nafisay qofkaas culaysaa ka degay what a relief maxaan nafis dareemay camal what a relief then Miss Hafsa waxay tiri I am glad to hear that aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kaa maqlo sida aad leedahay macnaha inaad relief dareentay ama culays uu kaa degay you have been studying so hard the past few weeks waxay tiri you have been studying so hard the past few weeks aad dadaalaysay isbuucyada lasoo dhaafay aad u akhrisanaysay ama xoog ayaad u akhrisanaysay now you can relax and enjoy life hadda waxay tiri now haddeertan you can relax waad nasan kartaa and enjoy life noloshana waad ku raaxaysan kartaa sorry waan cabursanahay noloshana waad ku raaxaysan kartaa taasay la micno tahay qofka markuu imtixaanka ku jiro inuu aad u murugeysiiyo culays badan oo fuulo laakiin maalinka imtixaanka ka soo baxa inuu relaxation dareemayo that person relaxes uu degayaa niid degan kadibna jawi degan u galaa noloshiisa oo u sii gudagalayaa normal lifekiisa tan Aasha waxay tiri what are you cooking maxaad karinaysaa it smells so good عرف معانا إلا ذا يتري يعني سوى نكسن وعرفه يا it smells so good واحد كرنيس هايو what are you cooking واحد كرنيس it smells so good وعرفه يا سوى نكسن then حفصة حيتري I am baking cakes هو إذا حيتري I am baking cakes واحد دبيا درشو أما cake this is your favorite carrot cake كاني waxay tiri waa midkii aad ugu jeclayd cake laga sameeyay karootada ama doorshada laga sameeyay karootada school carrot cake then Aasha waxay tiri it looks really yummy yani wuxuu eegay tiri mid aad u macaan badan and I see muffins over there too halkaana waxaan ku arkay tiri muffins over there muffins marka haddaan micneeyo muffins waa shayga aad arkaysaan waxyaabaha inta laga sameeyo cake yarka ama queen cake sida quruxda badan loo hagaajiyo la qurxiyo meelaha inta meel isku geeya sida goonida loo cuno ayaa leeyahay muffins so and I see muffins over there too muffins waa kan marka this is the muffins
qaab kale ku micnay waan garan waay laakiin sawirkan soo qaatay you were busy weren't you waxay tiri marka you were busy macnaha markay aragtay muffinskan hooyada ay dubtay kadibna cake ay dubaysay macnaha waxay tiri you were busy aad u mashquulsanayd weren't you miyaadan ahayn mashquul miyaadan soo mashquulin maanta inay maalin dheer ku noqotay hooyada bay ogta gabadhan gabadh caqli badan waay then waxay tiri yes Ali has to take something to school tomorrow macnaha walaalkooda jiro oo loo sameeyay muffinskan si iskuulka ugu qaata biri maadaama cunno fudud uu yahay so waxay tiri yes ha maanta aad u mashquulsanaa Ali has to take something to school tomorrow Ali waa inuu u qaataa biri iskuulka wax uu qaato inuu helo waayo so those muffins are for him don't touch them so muffins kasta aad arkaysa tiri those muffins are for him don't touch them asagan u sameeyay ha taabanin don't touch them those muffins kas are for him asa iskale don't touch them ha isu taabanin don't touch them then Asha waxay tiri can I have a piece of carrot cake hooyada marka waxay sameynaysa cake laga sameynaya ama doorsho laga sameynaya carroto so waxay tiri can I have a piece of carrot cake cadir ma qaadan karaa I want to enjoy life right now hadda ayaan rabaa tiri inaan nolosha ku raaxaysto macnaha iskoolkii aan iska iloobo waxyaabihii culaysidii waxa aan soo maray then Xafsa waxay tiri you don't want to wait until after dinner يعني ما رتد مياه أنا أنت تسوق إلا عشرة كذب أتعنتد معناها وحلو ترجلي كاروت كيكان أنا لعنا عشرة كذب so حيتري you don't want to wait until after dinner يعني أنا تسوق تمدوني سد مياه تري إلا عشرة إلا حل عشرة لا ضعفه then حيتري it looks inviting and I bet it is delicious marka waxay tiri it looks inviting waxay u eegayeen tiri mid aad ii soo jiidanaya ma aad ii soo dhaweynaya yani way jeclaysatay way u dheereeraysaa then waxay tiri and I bet it is delicious waxaana ogahay tiri aan maanta ku marqaati furayaa inuu yahay delicious mid macaan delicious waa macaan waxay tiri no I don't want to wait no I don't want to wait ma raba inaan sugo can I ma heli karaa hooyo then hooyada Xafsa waxay tiri okay go ahead okay go ahead then Asha waxay tiri did you see the new recipe that was posted on today's cooking website macnaha gabadhani hooyada waxaan ka dareemayaa inay website ku xiran yihiin website-ka ayada ah oo ka daawadaan waxyaabo cusub oo marka ayada qaabka wax loo kariyo iyo ingredients-ka iyo wixii so waxay tiri did you see the new recipe that was posted on today's cooking website ma aragtay tiri new recipe horaan usoo baranay waxaa la yidhahaa dadkii hore aan noola joogin recipe waxaa la yidhahaa cunada qofka markuu wax sameyn rabo ama inuu cake dubo ama doorsho dubo yani waxyaabihii uu isticmaal lahaa qaabkii u qoran yihiin biyihii qiyaastii lagu qasi lahaa cusbadii qiyaastii lagu dari lahaa subagii burkii qiyaastii all those things aa la yidhaha recipe so ma aragtay tiri marka recipe maanta lasoo post garay website-ga I believe it was called scrumptious pie waxay ila tahay tiri magaca haddaan soo xasuusto in la oranayay scrumptious pie waxaa la yidhahaa shayga inta la dubo tusaale marka la dubo cad sambuus ahaana loo bixinaya sida doorashada kale marka afar gees loo jaro saddex gees ahaana loo jaraya saas iyo saas soo cadkan hadda meesha ku aragtaan camal ayaa la yidhahaa scrumptious pie so Miss Xafsa waxay tiri no I did not يعني war uma haysa camal but I want to try that recipe يعني laakiin waxaan doonayaa tiri inaan isku dayo recipe-ka ayada ah your dad loves pie aabaha wuxuu jecel tiri pie-ga marka waxa waaye markaad aragto pizza kale saas marka dhaxda loo jaro cad sambuus camal kugu soo aaday that's called a pie dadka xisaabaadka bartay dugsiga sare way yaqaanaan pie chart anyway Asha marka waxay tiri soo do ana miyana la mid ahayn macnaha hadduu aaba jecel yahay pie-ga ana miyana la mid ahayn then hooyada waxay tiri so does Ali miyuusan la mid ahayn our whole family is crazy about pie so family-ka dhan ayaaba ku waalanaytay pie-ga then Asha waxay tiri when do you want to try the new recipe goorma ayaad doonaysaa hooyo inaad isku daydo new recipe-ka I want to learn too an naftirkayga inaan bartaan doonayaa should we bake a cherry pie or an apple pie macnaha ma waxaan samaysanaa tiri cherry waa miri gaduudka cherry pie or an apple pie ama tufaax pie-giis aan samaysanaa yani kan hadda midkaa meesha ka muuqdo waa apple pie then ma hooyada Xafsa waxay tiri since this is
the cherry season xilliga hadda lagu jiro waxay tiri waxaa soo go'a mira gaduudka la yiraahdo cherry. So since this is the cherry season, maadaama hadda ay tiri seasonka cherryga lagu jiro, let's make a cherry pie. Hadda waxaan samaysanaynaa cherry pie. Pie-ga cherryga aan ka samaysanaynaa. Tomorrow I will get some cherries at the supermarket. Berri markuu duu ilaa yaraha waxaan noo soo gadaya tiri xig cherries ah aan supermarketka ka soo gadaya, and we can start baking in the afternoon when you get home from school. Marka and we can start waxaan bilaabi karnaa inaan dubno berri galabkii xilliga iskoolka aad dib uga soo laabato. Then Asha waxay tiri I need to finish a science project. Waxaan doonayaa inaan gabagabeeyo a science project ama mawduuc oo science ah oo la ii soo dhiibay. And I will not get home until 3:30. Mana ilaa aanay tiri inaan guriga imaan doono ilaa 9:30 qadar 30 daqiiqo. Waa 9 saac bar galabkii. Will it be too late to start baking, mom? يعني ma waxay noqonaysaa tiri inaan ka daaho inaan xilligaas aan bilowno inaan dubno hooyo? Then if it is, you can start without me. Haddii ay sidaa tahay tiri inaan ka daahayna ay kula tahay waad bilaabi kartaa aniga la'aantay. You can start without me. Then Xafsa waxay tiri 3:30 p.m. It's fine. So يعني 9 saac iyo bar galabkii waa okay. I will prepare dinner early. waxaan diyaarinayaa cashada xilli hore. And then markaas kadib I will have everything ready for you for our baking season before you get home. And then I will have everything ready for our baking season before you get home. marka kadib waxay tiri waxaan noo diyaarinayaa wax walba oo marka looga baahnaa baking candy ama inaan shayga aan dubno intaadan guriga imaanin. Then Asha waxay tiri make sure that we still have enough sugar and eggs. Hooyo waxaad xaqiiqsay tiri in ukun nagu filan iyo sokor nagu filan ay inoo taalo hooyo. It seems waxay ogtay tiri ama waxa ila muuqato like you were using a lot of sugar and eggs baking the cakes and muffins today. inaad isticmaalaysi sokor aad u badan ama ukuma aad u badan markii aad dubaysi muffinska maanta iyo cake-ka. Then Xafsa waxay tiri don't worry, we still have plenty of sugar and a lot of eggs, enough to make at least 10 pies. Ha ka walwala yidhahda don't worry, we still have. weli waxaan haysanaa ukuma badan iyo sokor badan oo nagu filan, taas oon ka samaysan karna 10 cad ama 10 piece oo pie ah oo kan 10 kiis xabe. Then waxay tiri 10 pies 10 pies 10 dhana macnaha 10 sounds like a good number. 10 يعني waxay u muuqataa number wanaagsan. But let's not overdo it. يعني aanan ku fogaanin. Let's not overdo it ama wax badan aan ka samayn. Let's make 9.5 pies instead. يعني aan samayno 9 iyo bar pie. يعني markii inta wareeg loo sameeyo la jarjaro 9 iyo wax yar aan noqoto ay nagu badanin macna. Then waxay tiri marka okay, we will make 9.5 pies tomorrow. biri marka waxaan hagaajinaynaa 9.5 pies tomorrow. No more no less. ka badanna ma jirto ka yarna ma jirto. Okay, then from there waxay tiri Asha waxay tiri it is a deal. يعني waa deal means wax la isku raacay, waan isku raacnay. Then Xafsa waxay tiri enough about baking pies. intaas ayaan uga haraynaa, ayaan ugu filan about baking pies. I need to start working on today's dinner. waxaan rabaa inaan u guda galo casho karinta cawada ama cashada cawada karinteeda ama howlgalkeeda. It is 3 o'clock already waxay tiri waaba 9 saac durba. So your dad and Ali will be home soon. Aabaha iyo Ali walaalkeed waaye will be home soon. ay mar dhow guriga ku soo wajahayeen. I am sure they will be very hungry. waxaan hubaa tiri inay baahnaan doonaan and they need something to eat. I am sure they will be very hungry and they need something to eat and they will want dinner right away. waxayna iga baahanayaan tiri casho inay hore ka cunaan. Then Asha waxay tiri what do we have for dinner? maxaa inoo diyaarsan cashada? What do we have for dinner tonight? caawa maxaan haysanaa cashada caawa maxaan ku cashaynaynaa? Then Xafsa waxay tiri I will make a roast beef
and a cream of mushroom soup. waxaan inoo diyaarinay tiri macaawa aan budgetka noogu jiro roast beef يعني hilib lo-aad oo la dubay and beef haddaad maqasho waa hilibka looda and cream of mushroom soup يعني mushroom soup oo culus cream marka la yidhaha waa shay culus la yidhaha so mushroom waa geedkan geedahu ka baxa badanaa maxilliyada meelaha roobka da'a dadka qaarna way beeraan darbiyada aad ugu dhagaa geedaha kadib marka la shiido oo soup laga hagaajiyo ama maraq laga hagaajiyo ayaa saan u soo baxaya then Asha markuu waxay tiri she was surprised way farxday she said it has been a long time since you made a cream of mushroom soup يعني mar hore noogu dambeysay tiri inaad noo samayso mushroom soup ka creamka do you need any help mom ma waxaad u baahan tahay wax caawinaad hooyo then Xafsa waxay tiri no go do your homework and leave the cooking to me kac iska qabso shaqadaada ama homeworkgaagi shaqada guriga lagugu soo diray ee buugaagtaada iska falanqayso shaqadana wixii wax karisa cunno karisna aniga ii daa then Asha waxay tiri thanks mom waa mahadsantahay hooyo call me whenever dinner is ready isoo wacay tiri ama isoo wargeli markii ay cashada diyaar tahay I do not want to be late for roast beef ma doonayay tiri inaan ka daaho roast beefka hilibka lo-aad la dubay and cream mushroom soup carrot cake and muffins inaan ka daaho hilibka lo-aad la dubay mushroom soupki carrot cake iyo muffinski haddayna maxaa lahay muffinskan walaalkaa iska leh then Xafsa waxay tiri hooyo waxay tiri the muffins are for Ali do not touch them muffinska waxaa iska leh Ali berri iskolku qaadana micnaha ha isku taabanin then Asha iyadoo qoslaysa waxay tiri I know waan ogahay mom hooyo just kidding waan iska ciyaarayay thank you hase ku dhamaaday then waan dulmaraya hal mar mom I am home how was school how did you do on the test then Asha said school was okay and I did great on the test mom I was so worried about that test but now I feel great what a relief then Hafsa said I am glad to hear that you have been studying so hard the past few weeks now you can relax and enjoy life then Asha said what are you cooking it smells so good and Hafsa said I am baking cakes this is your favorite carrot cake then Asha said it looks really yummy and I see muffins over there too you were busy weren't you then Hafsa said yes Ali has to take something to school tomorrow so those muffins are for him don't touch them then Asha said can I have a piece of carrot cake I want to enjoy life right now then Hafsa said you don't want to wait until after dinner then Asha said it looks inviting and I bet it is delicious no I don't want to wait can I mom then Hafsa said okay go ahead then Asha said did you see the new recipe that was posted on today's cooking website I believe it was called scrumptious pie then Asha said no I did not but I want to try that recipe your dad loves pie and then Asha said so do I then Miss Hafsa said so does Ali our whole family is crazy about pie then Asha said what do you want to try when do you want to try the new recipe I want to learn too should we bake a cherry pie or an apple pie then Miss Hafsa said since this is a cherry season let's make a cherry pie tomorrow I will get some cherries at the supermarket and we can start baking in the afternoon when you get home from school. Then Asha said I need to finish a science project and I will not get home until 3:30. Will it be too late to start baking, Mom? If it is, you can start without me. Then Hafsa said 3:30 p.m. is fine. I will prepare dinner early. Then I will have everything ready for our baking season before you get home. Then Asha said, make sure that we still have enough sugar and eggs, Mom. It seems like you are using a lot of eggs and a lot of sugar and eggs baking the cakes and muffins today. Then Hafsa said, don't worry, we still have plenty of sugar and a lot of eggs, enough to make at least 10 pies. Then 10 pies? 10 sounds like a good number.
Let's not overdo it. Let's make 9.5 pie instead. And Hafsa said, okay, we will make 9.5 pies tomorrow. No more, no less. Then Asha said, it is a deal. Then Hafsa said, enough about baking pies. I need to start working on today's dinner. It is 3 o'clock already, and your dad and Ali will be home soon. I am sure they will be very hungry and will want dinner right away. Then Asha said, what do you have for dinner tonight? Then Mrs. Hafsa said, I will make roast beef and a cream of mushroom soup. Then Asha said, it has been a long time since you made cream of mushroom soup. Do you need any help, Mom? Then Mrs. Hafsa said, no, go do your homework and leave the cooking to me. Then Asha said, thanks, Mom. Can we or call me whenever dinner is ready? I do not want to be late for roast beef, cream of mushroom soup, carrot cake, and muffins. Then Miss Hafsa said, the muffins are for Ali. Do not touch them. I know, Asha. Mom, just kidding. Thank you so much. Bye bye.